dowladda hoose degmada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah dhul ugu wareejisay qaar ka mid ah ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jidda hore ee Soomaaliland dhulkani oo dhan 200 oo balood waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka ka degmada Caynaba waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay maayirka degmada Caynaba iyo mas'uuliyiin kale saako ay tahay bishii koowaad 2020 sida xogayu sheegay waxaan ku wareejinaynaa ciidamadii jidda hore qaranka Soomaaliland ee ummadan ay ku huruday ee ku fadhiday cabashadooda yahay reeraha iyagu waxay ku jiraan daarado dadka la leeyahay makira wareejinaynaa ciidamada qaranka ee jidda hore dhulkii madaxweyne digreetada ku soo saartay wanaga ku wareejinay waa 220 balood sida farsamayaqaynta xogayu sheegeen in lagu wareejiyo waana qorshaha 2019 halkan waxaan u nimi ama ugu soo baxnay inaanu wareejino ama se guddoonsiino 220 balood askarta jidda hore ee joogta xaasaskooda annagoo gacanta ku hayna ayaa haddana waxa soo baxday wareegtadii madaxweynaha ee ahayd danta guud in loo siiyo askarta iyo shaqaalaha ruuxantii halka kan waxa ka dhacaya ama ka muuqda wax wanaagsan sida ay sheegeen maamulku wareegtadii madaxweynaha ee ay yiraahdeen dhul hala siiyo militariga waanu bixinay bay yiraahdeen waana bixiyeen ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar ahna kusimaha barasaabka Nuur Qaasin Qodax halkan waxaan maanta ka gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Caynaba iyo xogayaha degmada dhul 220 balood ah dhulka waxa dawladda hoose ay siisay ciidanka qaranka jidda hore markay cabasho ka soo muujiyeen qoysaskoodii oo aan meel deegaan aan haysan dawladda hoose waxay isku xilqaantay in ay siiso dhulkiina saakay siisay waana loo gudoonay waana loo cabiraya inta waxa ka dambeeya waxay dawladda hoose ballan qaaday qorshahaas waxa qorshiis 2019 2020 inay qorshe kale inay ku dejinayso وعلي آدم دري علي تاني وركة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynaba adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida